aad baad u mahadsan tahay Hooda Axmed Qarbooshe. بسم الله الرحمن الرحيم. وركم مدحديسي وزارة هربريتا عافيمادكا جمهورية سوماليلان oo si baalila uga warbixisay xaaladda Soomaaliland ee xanuunka coronavirus ayaa sheegtay in 24 saacadood ugu dambeeyay laga helay xanuunka COVID-19 25 qof oo cusub taasi oo tirada guud ee dadka laga helay xanuunkaasi guud ahaan Soomaaliland ka dhigaysa 500 iyo 4 qof. wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo weelinayo murashaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga UCID Professor Axmed Cabdi Muuse Abyan iyo maamulka gobolka Sool ayaa ka anbabixiyay magaalada Laascaanood odayaal iyo waxgarad ka mid noqon doono ergooyinka nabadeynta ee deegaanka Horfadhi ee gobolka Buuhoodle. الله نحرسته waxaa maanta lagu aasay magaalada Boorama marxuum Axmed Jaamac Caar oo ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland waxaana aaska marxuumka ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Mudane Mukhtaar Maxamed Cali madaxda kala duwan ee wasaaradda iyo waliba shaqaalaha wasaaradda qaybo kamida saddex askari oo ka tirsan ciidamada dalka Cameroon ayaa maxkamadii dambi ay ku heshay dambigaasi oo ah in ay dad ku xasuuqeen dalka gudihiisa sanadkan horaantiisii. shirkadaha diyaaradaha ee waddanka Australia ayaa ku dhawaaqay in ay dib u bilaabi doonaan duulimaadyadoodii ay wadamada Yurub qaarkood ay ku tagi jireen bartamaha bishan June iyagoo markaasi duulimaadyo ku tagi doona ilaa 36 goobood oo wadamada Yurub ka mid ah sida lagu sheegay bayaan ay soo saareen shirkadahaasi. dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warkeena oo kooban imikii haatan ku soo dhawaada warkaasi iyo warar kale oo fidsan. wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo si maalinle ah uga warbixisay xaaladda Soomaaliland ee xanuunka coronavirus ayaa sheegtay in 24 saacadood ugu dambeeyay laga helay xanuunka coronavirus 25 qof oo cusub taasi oo tirada guud ee dadka laga helay xanuunkaasi guud ahaan Soomaaliland ka dhigaysa 504 qof. wasaaradda caafimaadka Soomaaliland waxa ay sheegtay in dadkaasi laga helay xanuunka ay 23 ka mid ay markaasi ay yihiin reer Soomaaliland halka 2 ka midina ay u dhasheen dalka Pakistan kuwaasi oo 12 ka mid ay rag yihiin halka 13 kalena ay yihiin dumar. warbixinta wasaaradda caafimaadka waxa kale oo lagu sheegay in dadkaasi laga helay xanuunka coronavirus ay daadoodu u dhaxayso 1 sano ilaa 89 sano kuwaasi oo markaasi ku kala sugan magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera. dadka laga helay xanuunka coronavirus ayaa sida wasaaradda caafimaadku ay sheegtay waxa ay ku kala sugan yihiin magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera. wasaaraddu waxa intaasi ay ku dartay in 3 qof oo cusub ay ka bogsadeen xanuunka coronavirus taas oo tirada guud ee dadka ka bogsaday xanuunka ka dhigaysa 84 qof iyadoo aanay jirin wax dhimasho ah oo ku soo kordhay tiradii hore oo ahayd 26 qof. ugu dambeynna wasaaradda caafimaadka Soomaaliland waxay bulshada u soo jeedisay inay ilaaliyaan nadaafadda guud isla markaasina ay kala fogaadaan kana farxashaan kana taxadaraan halista xanuunka coronavirus uu markaasi leeyahay. ciddii isku aragta astaamaha xanuunkaasina ay iskarantiisho oo ay markaasi si aanay ugu gudbin bulshada inteeda kale. wasiirka arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo weelinayo murashaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga UCID
brofesor axmed cabdi muuse abyan iyo maamulka gobolka sool ayaa ka ambabixiyey magaalada laascaanood odayaal iyo waxgarad ka mid noqon doona ergooyinka nabadaynta ee deegaanka horufadhiga gobolka buuhoodle ugu horeyn waxaa goobtaasi ergada lagu sabootinayay ka hadlay meeyarka degmada laascaanood cabdicasiis xuseen taarwale iyo guddoomiyaha gobolka sool cabdiqani maxamuud jiidhe oo iyagu ka warbixiyey ergadaasi ay ambabixiyeen waxaana ay mas-uuliyiintani sheegeen in ergadani ay u ambabixi doonaan deegaanada horufadhi iyo ceegaaga oo ay isku mari doonaan iyagoo ka qayb qaadan doona nabadaynta shaqaaqo dhowaan 2 beelood oo walaala ah ku dhex martay deegaankaasi mas-uuliyiinta gobolka sool iyo kuwa degmada laascaanood ayaa ugu duceeya ergadaasi in ilaahay uu ku asturo howlaha nabadaynta ee ay markaasi u baxayaan waxaanay tilmaameen in deegaanadaasi ay hore u gaadheen ergooyin hore oo ka kala socday gobolada sool iyo buuhoodle kuwaasi oo ay markaasi ergadanina ay ku biiri doonto waxaa isna goobtaasi ka hadlay murashaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga ucid brofesor axmed cabdi muuse abyan oo isaguna tilmaamay in ergadani ka ambabaxaysa magaalada laascaanood ay yihiin kuwo isku dhafa ah oo aan markaasi dhinaca keliya ahayn waxaana ay baaq nabadeed ay u direen beelaha walaalaha ah ee deegaano ka mid ah buuhoodle ay diriri ku dhex martay gabagabadiina wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda somalilan brofesor yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon oo goobtaasi ka hadlay ayaa ergadani bogaadiyey isagoo ilaahayna uga baryey inuu ku guuleeyo in ay ku guulaystaan soo afjaridda shaqaaqadaasi ka dhacday gobolka buuhoodle deegaano ka mida allaha u naxariistee waxaa maanta lagu aasay magaalada buurama marxuum axmed jaamac caar oo ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda somalilan waxaana aaska marxuumka ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan mudane mukhtaar maxamed cali madaxda kala duwan ee wasaaradda iyo weliba shaqaalaha wasaaradda qaybo ka mida ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland agaasimo waaxeedyo iyo shaqaale ka tirsan wasaaraddaasi badi bahda saxaafadda gobolka Awdal qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama siyaasiyiin dhalinyaro odayaal iyo waxgarad waxayna halkaasi ku ogaan salaadii jinaasada inta kadib mas'uuliyiintii kala duwan ay ka soo qayb galay aaska marxuumka ugu horeeya agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Somaliland Mukhtaar Maxamed Cali ayaa tacsi tiiraanyada u diray ehelada qaraabada bahda saxaafadda iyo bulshada reer Somaliland oo ka baxay Allah naxariistii jannaha ka waraabiya ruugcada saxaafadeed marxuum Axmed Jaamac Caar oo ku magac dheer Axmed Aar iyagoona eebba uga bariyay inuu jannatul firdawsa ka waraabiyo kulli nafsin daqiiqatul maut maanta waxaynu joognaa aaskii Allah naxariistee marxuum Axmed Jaamac Caar oo aanu aaskiisa u nimid aniga iyo saraakiil ka mid ah wasaaradda warfaafinta oo runtii Axmed wanaagiisa iyo qiimuhu ku lahaa wasaaradda warfaafinta waxa muujinaysaa inaan ku soconay 8 baabuur qaar ka midna ay wali dambeeyaan oo shaqaalihii wasaaradda warfaafinta ah Axmed waxa uu uga baxay maanta saxaafadda Somaliland guud ahaanteeda waxaan u ahaa tiirarka ay ku dhisan tahay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelintu الله ونحرس أحمد إله وحنا قبرينا إرجعنا النهاي وندعينا إن إله ونحرسته سؤال شنو فضيديه كنا فردوسنا كورابيه وحن تعسود ريا إن أنا أقول هلا أفكر شغالة وينها وسارة ورفافنتها قويسكي وكبحي قراودي أصحابتي يو دمان صحافة دا جمهورية الصومال أنا يكبحي شعبي الصومال دماتين وحلا إلهي هي نقصي سمرية إيمان أحمد جامع عار وحن شقده وذا بلوني أو أنا قلت جيسقو كشكية وساردي والفافنتي يانوني تدوينها سنة كي يكون سقال بقول يو سديتنكي أنتي كوريسي إلا أفري سديتنكي وحا صور قادة كترسان وكالة دي في المدى أنتي كدم بيسينا وحا وكم من نقضي kamaramaanadii telefishinkii qaranka intii burburkii kadib waxa uu noqday ninku caan baxay in
xudunta taariikhda Somaliland markii xornimada ay dib u la soo noqotay Somaliland wuxuu ruux wanaagsan oo cibaado badan oo afgaaban oo runtii aad iyo aad u ixtiraam badan anigu waxaan aqaanay runtii muddo sanad ku dhow oo agaasimaha shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ahaa wuxuu ahaa runtii dadka khibradda badan u leh shaqada oo qofkii shaqada uga soo horeeyay gacan qabta runtii meesha kala bara khibrad badan uga sheekeeya axmed aar annagu waxaanu isbarannay muddo 18 sannadood laga joogo xilligaasoo uu si part-time ula shaqayn jiray wargeyskii Maandeeq oo sawiradu kuwan kameradan casriga lagu qaado meehna waxay kuwii la qaadi jiray dhaga krumka la geyn jiray xilligaasoo uu wuxuu noola shaqayn jiray si aad moodo inuu yahay shaqaale full time runtii wuxuu ahaa nin ballaaran oo dadka wuxuu ku dhaamo u sheega axmed taariikh buu leeyahay oo 29 iyo 91 iyo 96 waxaan xusuustaa waqtiyada qaar wax kamarad haya oo wax duuba ama wax sawira boormo oo dhan kelidii baa joogay laga soo bilaabo waqtiga ilaa maanta wuxuu ku jiray inuu dadka iyo dalka wax duubo shaqo wadaag baan lahayn wasaaradda beeraha markaan ka eegno gaar ahaan anagana waxaan leenahay wasaaradahan inuu ilaahay sabri iyo iimaan naga siiyo ayaan ka baryaynaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wa cabsalan saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Boorama aad baad mahadsantahay Cabdisalaam wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland oo kaashanaysa hay'adda maxalliga ee Candlelight ayaa qaar ka mid ah gobolada dalka u kala dirtay gaadiid sida agabka caafimaadka ee lagaga hortago xanuunka coronavirus ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay Cabdi Ducaale Cali iyo Cabdirasaaq Bashiir Libaax oo ka mid ah saraakiisha hay'adda Candlelight waxaana ay faahfaahin ka bixiyeen qalabkaasi iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay iyagoo intaasina ku daray inay doorkooda ka qaadanayaan sidii looga hortagi lahaa xanuunka COVID-19 waxaanay sheegeen in agabkaasi caafimaad loogu talagalay gobolada Maroodijeex, Togdheer, Sool iyo Sanaag. geesta kale waxaa isna halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda gargaarka degdega ee wasaaradda caafimaadka Dr. Cabdiraxmaan Cumar Maxamed iyo madaxa fayadhowrka iyo xanuunada xuduudaha isaga gudba ee wasaaradda caafimaadka Dr. Cabdiwahaab Cabdi Jaamac Nakruma waxaana ay u mahadnaqeen mas'uuliyiinta hay'adda Candlelight iyagoo fariimo caafimaad oo ku saabsan xanuunka coronavirus halkaasi uga diray bulshada halka warkan idinka soo gaaraya waa Radio Hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland saddex askari oo ka tirsan ciidamada dalka Cameroon ayaa maxkamadii ay dambi ku heshay dambigaasi oo ay inay dad ku xasuuqeen dalkaasi gudihiisa sanadkan horaantiisii saraakiil ka tirsan wasaaradda difaaca ee waddanka Cameroon oo ka hadlay askartan dambiga lagu helay ayaa sheegay in muddo baadhitaan ay ku wadeen askartaasi iyadoo ugu dambeynna lagu helay dambiga ah inay xasuuq ay ka geysteen dalka gudihiisa askartani ayaa horey loogu soo eedeeyay inay laayeen 23 qof oo 15 ka mid ay yihiin caruur sidoo kalena ay ku jiraan laba dumar oo uur leh kuwaasi oo ay ku dileen tuulada Naguruba oo 14 February ee sanadkan ay ku dileen halkaasi waxaana falkaasi hore u cambaaraysay qaramada midoobay askartani ayaa hore u diiday kiiskani iyagoo sheegay in aanay iyagu markaasi wax luga ku lahayn sidoo kalena ciidamada militariga ee dalkaasi ayaa iyaguna sheegay in kiiskani ahaa mid ka baxsan shaqada ciidamada sidoo kalena uu markaasi si nasiib darro u dhacay isla markaana dilkani uu ka dhashay container uu ku jiray shidaal oo qarxay kadib markii kooxaha goori u goosadka ah ee dalkaasi iyo ciidamadu ay rasaas isweydaarsadeen madaxweynaha dalkaasi Cameroon ayaa amar ku bixiyay in markaasi la baadho taasi oo ugu dambeynna lagu helay saddexdaasi askari inay ka dambeeyeen dadkaasi la laayay ilaa iyo haddana lama oga xukunka ku dhici doona askartaasi shirkadaha diyaaradaha ee waddanka Australia ayaa ku dhawaaqay inay dib u bilaabi doonaan duulimaadyadoodii ay wadamada Yurub qaarkood ku tagi jireen bartamaha bishan June iyadoo duulimaadyada ay ku tagi doonaan ilaa iyo 36 goobood oo wadamada Yurub qaarkood ka mid ah sida lagu sheegay bayaan ay soo saareen shirkadahaasi meelaha ay sheegeen inay duulimaadyada ugu horeeya ay ku tagi doonaan ayaa waxa ka mid ah magaalooyinka Kiev, London, Milano iyo Stockholm
waxaana war-saxaafadeedkani ay wadajirka u soo saareen shirkadahani ay ku sheegeen in duulimaadyadani ugu dambayn ay bilaabi doonaan horraanta bisha julaay. shirkadahani diyaaradaha ee dalka Australia ayaa shaqadooda dib u bilaabaya kadib muddo 3 bilood ah oo ay shaqada ka maqnaayeen xanuunka coronavirus awgii. waxaana la filayaa inay dalkaasi ay soo gaadhaan dad u dhashay 31 waddan oo Yurub ka mid ah 16 Juun. diyaaradaha ayaa u socdaali doona wadamada Sweden, Spain iyo Portugiiska, waxaana ay sidoo kale hakada ay geliyeen duulimaadyadii ay ku tagi lahaayeen magaalooyin kale oo Ingiriiska ka mid ah. wasaaradda caafimaadka ee dalka Philippines ayaa ku dhawaaqday in ay kor u kacday tirada dadka uu ku dhacay xanuunka coronavirus ee dalkaasi, iyadoo ay maanta tirada dadkaasi ay ku kordheen dad gaadhaya 443 qof oo cusub. wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay sheegtay in tirada guud ee dadka xanuunkaasi uu ku dhacay ay gaadhayso 4,175 qof, halka ay dadka ka bogsadayna ay gaadhayaan 5,165 qof. dadka xanuunkani u dhintay ayaa iyagana tiradoodu ay gaadhaysaa 9 qof oo cusub maanta, waxaana tirada guud ee dadka xanuunkaasi u dhintay ay noqonaysaa 1,036 qof. dhinaca kale madaxweynaha dalka Philippines ayaa waxaa la rajaynayaa in uu markaasi khudbad u jeediyo dadka reer Philippines, isagoo oo khudbadiisa kaga hadli doona jihada cusub ee uu markaasi ku hogaamin doono waddankaasi. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ah ayaa xabad joojinta dalka Liibiya ee lagaga dhawaaqay waddanka Masar ku tilmaamay mid nabadgelyo loogu raadinayo qabqablaha dagaal ee Generaal Khalifa Haftar oo wakhtigani ku sugan gudaha dalka Masar. wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Turkiga waxa uu tilmaamay in xabad joojintan lagu baaqayo inay tahay mid ku timi markii ciidamada Generaal Khalifa Haftar ay ku fashilmeen dagaaladii ugu dambeeyey ee lagaga qabsaday dhul ballaadhan iyo goobo muhiima. hase yeeshee madaxweynaha dalka Maraykanka iyo madaxweynaha Turkiga oo dhinaca telefoonka ku wada hadlay ayaa ku heshiiyey in xabad joojinta qaramada midoobay ay tahay mid markaasi hirgasha waddankaasi Liibiya, isla markaasina la helo Liibiya xasiloon oo dan u ah gobolka iyo guud ahaanba caalamka. geesta kale xukuumadda dalka Masar ayaa soo dhoobtay ciidamo fara badan xuduudda Liibiya u dhaxaysa, taasi oo laga shakisan yahay in ciidamada Masaaridu ay gudaha u galaan waddanka Liibiya haddii ay dhaqan geli weydo xabad joojinta lagu baaqayo ee qaramada midoobay ay ku baaqday. warkii oo aad ka dhegaysanayseen Radio Hargeysa codka dhegaystayaal waa naga intaasi.